مشروعا waxaa lagu talagalay dadkan xoolaha iibka u keenaya maalinta ka horeysa maalinta gabayaaga maalinta ka horeysa inuu dadka xoolaha uu keeno oo ku sii nasiyo soo kiiloogiisa dhimin soo magaalada si ayra u geysto daraarta uu suuq u waayana soo nuu rafaadin uu meeshiisa ku celi fiiq ama xamaro geey soo nuu oran xaqan buu ayr sakeenaya ayuu dhiibanaya soo ayr suuqiisa iska galaya ilaa inta xoolihiisa iibsanayo ka iibsanayana maalin kasta markaas wuxuu u baahan yahay dhammood iibsan kara ka meel kala geenaya ninkaas muxuu yeelayaa 5 buu maanta iibsan karaa 6 buu iibsan karaa 10 buu iibsan karaa inta ay iibsaday meel la taga male xaqan iska soo wareejin xaqana wuxuu meeshan waxay leedahay meeshii lagu iibinay foreeshka inta xoolaha meeshii lagu iibinay bay leedahay biyo galin bay leedahay meeshii ku harsaneed bay leedahay caafimaadkii bay leedahay xoolaha lagu ilaalinayay marka waxa uu ka kooban yahay meeshan waa silig weyn marka hore waa 1 hektaar baa lagu dhisayaa silig lagu soo wareejinayaa 4 qabeed buu qaybsan tahay 4 xaqan waa arigi labadaas shishe waa arigi ayaa lagu xireenay maadaama arigu iska farabadan yahay labadaas shishe ari baa lagu xireenayaa oo meel had weyn la weeyaan hadka hoosteeda waxa nooga dhisan dararkii cuntada iyo dararkii biyaha ayaa ka dhisan xaqan kalena waa kan waa loodi iyo geeli kana waa loo kaliya afartaas koobanta meeshan inta ka soo 1 hektaar oo kala ayaa hadda loo baahan yahay oo laga dhisayo kliniki meeshii lagu dhakhtarin lahaa xoolaha iyo meeshii lagu iibin lahaa adlu cuntada meeshii buqaarkii weynaaye forage lagu dhaxeeyo calafka lagu dhaxeeyay ayaa laga dhisayaa meesha ka baxsan adna biyo gelin bay leedahay biyo gelintu afartan meelood oo loo wada gelinayaa biyihii maadaamtoos ay hadana waxay leedahay reservoir weyn bay leedahay reservoir ka weyn oo 50 mitir kuuba ayaa loo dhisayaa oo 1 kilomitir meel aan ka badnayn oo in biyo laga helaa oo laga soo jeedaa hadana marka hore meeshan dhaxay la keen meel la yaro marka hore lagu kala hubsado xoolaha oo detention pen la yiraahdo jira oo xanuunsan ka kala loo kala saarayo meesha ayaa marka hore yaa xoolaha la keenay la gelin xanuunsan marka loo ogaado waxa la geenayaa meeshii kale ka caafimaad qaban marka loo ogaado ayaa xaq lagu soo wareejinayaa meeshii laga reeyay ama lagu dajinayna way leedahay meeshu intaas koobanta